oo taa dadku ay fahmaan mabda'aas ama caqiidada ummadi isugu imanayso waa ta dadka lagu kaxeeyo shuyuuciyadu ruushku dowladdii weynaaya u aasaasay mabda'a shuyuuciyadu ku hagay maraykan iyo dowladaha reer galbeedku iyaguna mabaadi' bay u sameeyeen calmaaniye iyo liberaaliye iyo wixii lamid a ayay u samaysteen oo waxa weeye dadkii ay ku hagayeen ay ka tusayeen mabda'aasi mushkilaadka haysta inuu xal u yahay inaguna socon mayso wacdi keliya socon maayo waa lagu janno tegayaa oo keliya kuma filla dad badan haddii laga tago waa lagu cadaab mudanayaa oo keliya kuma filla waa caalamu lgayb waxaynu u baahannahay caalamu shahaada adduunyada la joogana in maslaxa laga tuso waayo dad baa luqada fahmaya dantoodu inay ku jirto diinta islaamka inay dhaqan geliyaan muxafis in looga dhigo oo dantooda laga tuso iyaduna aada bay muhiim u tahay taa haddii khitaabkeenna iyo dacwadeennu ku guulaysan weydo wacyigelinteennu hadday halkaa gaari weydo waxa weeye wax badan baa inaga dhiman qodobka labaad anoo soo koobkoobaya qodobkaa waa ogtihiin oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu markay xaqiijiyeen isbeddelka ay sameeyeen iyo sida ay waxa weeye caalamka u bedeleen waynu garanaynaa ribciy ibni caamir markuu furus la kulmay madaxdoodii la kulmay waxaa la weydiiyey maxaad u socotaan oo dhulkiina uga timaadeen waa dowladdii markaa ugu awooda badnayd wuxuu yihi ina allaha ibtacahanaa linukhrija alcibaad min cibaadati alcibaad ilaa cibaadati rabbi alcibaad waxaanu usoo baxnay inaanu dadka ka saarno bini aadan inay caabudaan oo dadku ay u baxaan ilaahay keligii inay caabudaan caqiide iyo mabda u cad oo ay fahamsan yihiin bay ka duulayeen taasaa saameynta keentay maanta waxaynu ognahay dad inala afa inala isyara soomaaliyeed aqoon-yaha sheeganaya ayaa maanta haddii la weydiiyo wayna dhacdo u aragteen diinta islaamka in la ysku xukumo maxaad u aragtaa waxa weeye xal anigu uma arko diintu masjidka ha ku sugnaato masjidka ha la galo qofku shaksiyadiisa ha u cibaadaysto laakiin xukun iyo maamul iyo siyaasad iyo dhaqaale iyo majaalaadka nolosha kala duwan waa in diinta banaanka laga dhigaa isagoo soo waaridaya afkaar iyo mabaadi aynaan waxa weeye shaqo ku lahayn muqawimka labaad ama asaaska labaad ee ummadi ay ku dhisantaa waa alicdaadu nnafsi dadka nafsadooda in la diyaariyo xasan ulbanna markuu ummadda qiimeynayay xilligiisii waxau ihi haddii ay isu tagtay ya-sun qaatil wa khumuulun mumiit wa jubnun faadix wa khunuuthatun faashiya wa shuxun wa anaaniya ummaddaa laga fili maayo inay hinqato haddii ummaddii ay tahay ummad quusatay oo rajo aan qabin ay ku sifaysan tahay caajis iyo kasal waxa weeye dilaa-ah oo aanay waxba qabsanayn ay u raacdo fulaynimo cad oo la cabsanayo in tallaabo la qaado ay usii weheliso labeennimo waxa weeye faafsan oo raganimadii meesha ay ka baxday iyo geesinimadii ay u weheliso shuxun wa anaaniya qof waliba naftiisa iyo noloshiisa keliya uu waxa weeye lexla jeclaysanayo waxay iska imanaysa ummaddu hawaan iyo dacfi inay ku noolaato waana tii nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xubu ddunyaa wa karaahiyat lmowt markii nabigu wahanka micnaynayay adduunyada in la jeclaysto geeridana la necbaysto
ayaa keenaysa dacfiga iyo dulliga taa wax lagaga baxaya oo muqawimaadka ka mid a oo dadka nafsadooda aynu ku diyaarinaynaa in yaqiinta iyo qanaacada la xoojiyo inay hubsadaan shakina aanu ka gelin ku qancaan oo aaminaan ay ku kalsoon yihiin xalku inuu ku jiro sharciga alle subxaanahu wa tacaala inay qaataan laba ashucuuru bilcizati walkaraama inay dareemaan cizo iyo karaamo inay leeyihiin in sharaf la siiyey laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum wainahu ladikrun laka waliqawmik ayabtaguuna cindahum alciza faina alcizata lilahi jamiica walilahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walakina almunaafiqiina laa yaclamuun aada waxaa nusuusta ugu badan in laga hadlo dadka muslimiinta ahy cizo iyo sharaf inay leeyihiin karaamo inay leeyihiin oo hawaanka iyo dulliga iyo dacfiga ay ka baxaan taasina qeyb weyn waxay ka qaadanaysaa cizadaa iyo karaamadaa inuu ilaaliyo inuu kobciyo inuu waxa weeye dhiso ayay saameyn weyn ku leedahay haddii dulli iyo dacfi la dareemayo qofkaasi wuxuu isaga dhaga nugul yahay oo diyaar u yahay inuu dacfi ku noolaado cumar ibn lkhadaab waynu garanaynaa baytulmaqdis markii uu baxay ee uu qaabilayey madaxdii uu qaabilayey ruum uu qaabilayey waxaa lagala hadlay labiskiisa inuu bedelo niman aada u labista oo dahabku ka lusho oo aada isu qurxinaya oo aada usoo labisanaya inuu qaabilayo oo madaxtinimadu ay ka muuqato ayaa waxaa la yidhi maryahan hadda la karkaray ee ruqcaduhu ku yaallaa ku qaabili kari maysa gaadiidkanna ku qaabili maysa tii baa lagala hadlay wuxuu ugu jawaabay maquulada caanka ah naxnu qowmun acazana allahu bilislaam famahma btagayna alcizata bigayrihi adallana allah cizada islaamnimaanu ku helnay maryo wanaagsan iyo gaadiid wanaagsan kumaanaan helin haddii wax kale aanu ka dayno cizo iyo sharaf ilaahay waana dullaynaya nin ka mid a khulafadii cuhmaaniyiinta ayaa waxaa la yidhi wafdi yurub ka yimi baa kuu imanaya altaariikhu yuciidu nafsa waxaa la doonayaa labiska noocaa iyo noocaasa inaad xidhato waayo sidaasay u labistaan labis u dhigma waa inaad ku labisataa waayahay buu ku yiri subaxii ballanta la isugu imanayaba wuxuu soo xidhay labis caadiya guri ku jooga laakiin wuxuu soo qaatay seeftii astaanta u ahayd alkhilaafa alcuthmaaniya seef aada u weyn oo aada u qurux badan ayuu dhinaciisa ka taagay labis caadigana waa xidhay wafdigii bay wada fadhiisteen wada hadal baa la galay asxaabtiisu aada bay uga xumaayeen labiska iyo muuqaalka uu ku qaabilayo markii shirkii dhammaaday buu yihi soo siraysta oo xantooda doona waxay ku sheekaysanayaan iyagii baa la waraysta waxaa la yidhi ba khaliifka iyo stylkiisa iyo siduu idinku qaabilay ka warbixiya baa layidhi waxay yidhaaheen labiskiisa maxaanu ka eegnaa seeftaanu ku mashquulsanay seeftaa ifaysa iyo afkeeda iyo dhumucdeeda iyo quruxdeeda bahashiina lagu layn jiray baanu ku mashquulnay bay yidhaahdeen maxaanu labis ka eegnaa macnahaasuu doonaya inuu tuso hadda waa aragteen oo dee dad baa sharafta iyo albaxnimada ka dayaya sheega xer inay noqdaan oo labada dhinac inay xeertaan dad baa ka dayaya xijaabkii inay dhigtaan oo isqaawiyaan suuqa dhexdiisa intaa karaamo iyo sharaf ka raadinaya qodobka saddexaad ee nafta aynu ku diyaarinayno waa alamalu waltafaa'ul wa xusnu danni billah in dadka yidi diilada loo furo tafaa'ulka loo furo niyadda la ysu dhiso ilaahay malahay lagu wanaajiyo waxaa ogtihiin kitaabka alle subxaanahu wa tacaala waxaa aada ugu badan alqasas oo ujeedadeedu tahay dadkii waddada alle ka leexdanay siday u hoogeen u halaagsameen dadka waddadii alle qaadayna siday u liibaaneen ay u guulaysteen baa lagu caddaynaya lama soo koobi karo yididiilaya waxay abuureysaa dadkii sharciga alla qaatay haddii ay guulaysteen waxaa lagu furayaa baabu lamal waalcaaqibatu lilmuttaqiin liman ittaqa
alaa ina nasra allahi qariib iyo adilada tilmaamaysaana aada bay u badan tahay. nabigaa loo yimi calayhi salaatu wasalaam xilligii maka iyadoo saxaabadii la dhibayo. waxay yidhahdeen yaa rasuul allah, xadiidkii bukhaari, alaa tadcu llaha lana, alaa tastansiru lana, ilaahay miyaadan hiil nooga dalbay, ilaahay miyaadan noo baryay? nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, ummadihii tegay qof baa la keenayay, dabeedna waxaa laga dalbanaya diintiisa inuu ka noqdo. markuu diido minshaar baa madaxa xaggiisa sare bartamihiisa laga saarayay, dabeedna 2 nus baa laga dhigay inta madaxa laga soo bilaabo. maa yasuduhu dalika can diin illah, taasi diinta alle kamay celinay. wuxuu nabigu ugu daray taa calayhi salaatu wasalaam, wallahi layutimana allahu hada almr, ilaahay baan ku dhaartay. nabigu waa u dhaaranaya calayhi salaatu wasalaam isagoo aan u baahnayn oo ay ku kalsoon yihiin. ilaahay waa dhammaystirayaa diintan ilaa qofku uu ka soo socdaalo xadramowt isagoo aan ka baqayn waxa weeye ilaahay mooyaane cid kale, cidna aan ka baqayn, iyo iyayda uu uga baqayo xoolihiisa mooyaane wax kale aanu ka baqayn. wuxuu siinayay nabigu calayhi salaatu wasalaam baabulamal ayuu furay. muqawimka saddexaad, alicdaad shaksi, dadka in la diyaariyo oo dad keenaya, isbedel keenaya inaynu soo saarno. waxay yidhaahdeen quwat lumam tuqaasu biqadri intaajiha lirijaal, ummadda awoodeeda iyo qiimaheeda waxaa lagu gartaa dadka ay soo saarayso iyo qiimaha ay leeyihiin. kamaa takunu yuwallaa calaykum, sida aada noqotaan baa maamulkiinuna noqonaya. in allaha laa yugayiru maa biqowm xataa yugayiru maa bianfusihim. isbedel markaynu calaa mustawa alafraad aynu samayno ayaa waxa weeye ka dowlad ahaan iyo bulsho ahaanna loo hagaagaya. waxaynu u baahan nahay inaynu soo saarno qof shaksiyad rabbaaniya oo ilaahay ku xidhan, mustawaha xidhnaanshaha ilaahay uu ku xidhaya intuu doono ha leekaado, ilaahay ku xidhan, caamil shaqaynaya, tii aakhirana ka shaqaynaya oo ilaahay u cibaadaysanaya, adduunyadana ka shaqaynaya oo horumar keenaya, mustaqil ah oo ka madax bannaan dabagal iyo tabaciyo iyo taqliid iyo hiraacnimo iyo wixii lamida. inuu yahay mufakir, qof fakeraya oo caqligiisa ka shaqaysiinaya. jari inuu yahay qof geesinimo iyo dhiirana ku sifaysan. muntij, wax soo saar leh. daahima, han leh oo hankiisu uu sareeyo ayaa waxa weeye aynu u baahannaha inaynu soo saarno si aynu ummadda wax uga bedelno. haddaynu soo koobno, waa inuu yahay caalimun caamilun mushaarik, qof cilmi leh ama cilmi adduunyo, cilmi aakhiro, caamil shaqaynaya, tii allana ka shaqaynaya, tii adduunyadana ka shaqaynaya, ay u wehelisay inuu yahay mushaarik, qof waxa weeye dadka wax kusoo kordhinaya oo aanay noqon xaaladu nafsi nafsi oo keliya. muqawimka afraad ee ummadii ay ku dhisantaa waa atacliim ljayid, jawdat tacliim, tacliim taya leh, tacliim muntija oo wax soo saar leh. mujtamacu inuu noqdo mujtamac wacyigiisu kobocsan yahay, idraak iyo aqoon ku sifaysan, intuu doonaba ha gaadhsiisnaado. dowladaha waaweyne hadda awoodda leh marka laga hadlayo ama la qiimeynayo mustawaha tacliinta, miisaaniyadda ay ugu talagelayso, qiimeynta iyo karaameynta ay macalinka u hayso, dhaqaalaha ay cilmi baadhista ku bixinayso, waxa weeye kaalin weyn bay dhigaan. innaguna waynu ognahay xaalkeena iyo mustawaheynu halkuu marayo. waxaa dhacaysa macalinkii inuu qaato $100, ardaygii secondariga ka baxay markuu shaqa uu galo inuu ka bilaabayo, dowladdan baynu ka hadlayna, cid kale ka hadli mayno, 400 500 buu ka bilaabayaa markuu silkiga dowladda galo.
macallinkiisii soo saarayna $100 buu qaadanaya oo laga yaabo 20 sano iyo inuu xaaladda ku jiro. mar haddii tacliintii sidaa hoos loogu dhigo, dhaqaale aan loo huray, mihnada macallinnimadu ta ugu liidata ay tahay sida mujtamacayna aynu ka arkayno, oo kulliyadda educationka ama tarbiyada looga yaaco aan loo gelin mustaqbalka macallin baad noqonaysaa, xaaladda macallin bay isugu imanaysaa. ummaddaas horumarku inta uu jiro waynu garanayna. Singapore waa magaalo waxa weeye caalamkiina sanka ka tashay, tayadeeda iyo quality-geeda. Indonesia jaar la ah oo 200 milyan ka badan, iyaguna waa 10 milyan wax ku dhow, ama 7-8 milyan way haddii la badbadiyo. hal magaalo ku noolo jasiira ah. Indonesiaanku waxay igu yidhaahdeen waxaanu aaminsanahay wixii Indonesia ka soo baxayay inaanu anagu hagaajisano warshadaysano, waxaanu kaga kalsoonahay Singapore inta la geeyo la soo warshadeeyo dibna loogu soo celiyo baanu kaga kalsooni badannahay. waxaanu u baahannahay miisaaniyadaheena inaynu iyo siyaasadaheena inaynu dib ugu noqono oo tacliintu ay noqoto kaalin fiican ay ka gasho. dowladahan hadda horumaray marka miisaaniyadooda la eego, qaar baa sida Israa'iil oo kale dakhliga soo gelaya 4% waxbarashay ku bixiyaan. waa miisaaniyad aad u weyn. inaguna intaynu ugu talagalnay waa 0.00 waxaan u malaynayaa 24 bay noqonaysa miisaaniyadda dalka marka loo eego. waa wax aad u hooseeya. wasaaradaha marka la qaybinayana A iyo B iyo C baa loo qaybiyaa. waxaa lagu qaybiyaa miisaaniyadda ay ku shaqaysaa lagu qiimeeyaa. wasaaradda waxbarashadu saan filaya A-na maaha B-na ma aha, meelo danbay ku jirtaa. haddaynu doonayno isbeddel in la sameeyo, in tacliinta la tayeeyo, waa muqawim asaasiya. muqawimka shanaad waa almanduumatu alakhlaaqiya. ummadda dhaqankeeda iyo caadooyinkeeda wanaagsan iyo mabaadi'da akhlaaqiga ah ee la isku waafaqsan yahay in la ilaaliyo. wuxuu leeyay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam, inamaa bucithtu liutamima makaarima alakhlaaq. waxaa la ii soo saaray inaan dhammaystiro akhlaaqda teeda wanaagsan, inaan dhammaystiro. wainama alumamu alakhlaaqu maa baqiya fainhum dahabat akhlaaquhum dahabu. ummadda jiritaankeedu waa dhaqan. dhaqanka haddii la waayo ummaddaasi waa baaba-aysaa. waana meelaha hadda laynagala dagaalamayo, in caqiidadii iyo mabaadi'diina laynagala dagaalamay oo shubahaad iyo tashwiish lagu furay. in lala dagaalamay dhaqankii iyo akhlaaqdii wanaagsanayd oo dhaqan baabiis uu socday. cadaaladda halkaynu ka joogna waynu garanayna. cadli, ammaanada, sidqiga, alkaraama, qofka xorriyadiisa in la ilaaliyo iyadoo sharciga lagu xakamaynayo, iyo akhlaaqda iyo dhaqamada wan wanaagsan iyo waxyaabaha la midka ah. waxa weeye halkaynu mustawaheenu ka joogo waynu wada garanaynaa. taana in dhinac looga soo wada jeesto oo mabaadi'da iyo qiyamka iyo akhlaaqda wanaagsan aada loo daneeyo, oo sida mujtamaceena ku faaftay cadaaladda ka waxa weeye wax ka maqan yihiinna waa ka hadlaya, ka wax ku maqan yihiinna ma jeclaysanaya in laga hadlo. oo marba ka libta leh ee ay wax ku maqan yihiinna cadaaladda ka hadalkeeda jeclaysan maayo, ama siyaabo kale u macnaysanaya. waxaa ku hadlaya un mid xaq ku doonaya, markuu xaqiisa gaarhana laga yaabo inuu dadka kale xuquuqdooda ku doodsiinayo. dhaqanka iyo mabaadi'daasina waa asaasi. ummad been isu sheegaysa, ummad waxa weeye corruption iyo fasaad iyo laaluush u dhex ordayo, ummad waxa weeye karaamadooda aan waxa weeye ilaalinay, ammaanadii iyo wixii loo dhiibtay mustawahay doonta ha noqoto aan ka soo baxay. ummadda noocaasa laga fili maayo inay meel gaadho.
qodobka ugu dambeeya taxsiinu alidaara waliqtisaad wasiyaasa in waxa weeye laga shaqeeyo sidii maamulka loo wanaajin lahaa, dhaqaalaha loo kobcin lahaa, siyaasadda iyo bulshada isku xilkeeda iyo midnimadeeda looga shaqayn lahaa. iyaduna waa caamil aada iyo aada u muhima oo asaasiya. muqawimaadku waa badan yihiin, laakiin waa qodobo aan maanta jeclaystay insha allahu tacaala marxaladan aynu joogno inaynu u baahannahay inaynu iftiimino, si macalinku qorshihiisa ugu darsado, ninka daaciga ahi khitaabkiisa ugu darsado, muasasaadku qorshooyinkooda ugu darsadaan, dowladdu siyaasadeeda ay ugu darsato. markaasaa isbedel imanaya insha allahu tacaala. intaasaan kusoo koobaya wallahu aclam.